Suldaan Siciid Aadan Xirsi oo ku magac dheer Cigalle oo telefishinka Ariel ugu warramay hotelka Nasteexe ee magaalada Burco ayaa markii ugu horeysay waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta colaad ku dhex marayso deegaanka Darar Weyne ee degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. shaqada halka ka dhacday ee dhimashada leh ee dhaawaca leh ee dadka walaalaha ah ee dadka inabtiga ah ee dadka soo abtiga ah waxaan leeyahay intii dhimatayna Ilaahay u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha bogsiyo hal la joojiyo xabadda xal maaha hal la joojiyo xabadda wada hadal ha lagu soo dabaalo nabad ha lagu soo dabaalo isafgarad ha lagu soo dabaalo walaalo Ilaahay ha lagu soo dabaalo waxaan leeyahay maanta cid inaga dhimatay inagama goodo xabadana xal maaha ha lagu soo dabaalo xal waxaan ka hadlayaa saddexaad salaadinta cimaamadaasita ee koofiyadaasita ee reeraha matala ee miidiya marinaya wixii aan inankii yar ka xishoon jiray waxaan leeyahay salaadintaana markaa ka waan tooba ma aha kii dhaqan maaha kii odaynimo maaha kii guurtinimo maaha waxaan leeyahay ummaddii waa idinka naxday ummaddii aad bay idinka naxday ummaddii aad bay idinla yaabtay saase arrin dhaqan maaha arrin odaynimo maaha waxaan leeyahay midhkaa laga waantoobo geesta kale suldaanku hadalkiisa sii watay waxa uu hambeliyey golaha baarlamaanka Somaliland isagoo ku taageeray inay ansixiyaan isla markaasina meel mariyaan mooshinka ka dhanka ah mayrada dalkaas walxigtada waxaan hambalyeeyaa golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay hambalyo maanta tubtii iyo wadadii shacabka Somaliland aad uga wakiilka ahaydeen aad ku soo dhacdeen waxaan aad idinku hambalyeynayaa arrinka aad ka hadasheen ee golaha deegaanka jamhuuriyadda Somaliland aad baan ugu hambalyeynayaa waa arrimihii laydinka baahnaa waa arrimihii waxqabadka ahaa waa arrimihii aad meesha u fadhideen waxaan leeyahay arrinkaa laydin keenay mooshinkiisa waa inaad si wanaagsan ugu guulaysataan waa inaad si wanaagsan ugu codaysaan waa inaad si wanaagsan guul uga gaadhaan aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waxaan raacinayaa waxaan taageersanahay in kaa dambe 11 ah xilka lagaga tiriyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland baawar weelo siduu u bedelo waayo waxay noqotay xero rag yeeshay xero uu ku kaambay gareeyay ninkiiba adduunku dalka gelin lahaa ee dhaqaalaha gelin lahaa wuxuu geliyey inuu samaystay oo isliya lagu ridin ayuu ku samaystay dhaqaali waxaan hambalyeynayaa oo aan taageersanahay ka dambe ee la hor keenay 11 ah in maayarada ayaan taageersanahay maxamed mataan gabalax maxamed mooto telefishinka caalamiga Ariel magaalada Burco.